salaadiin cuqaal odayaal dhalinyaro ayaa si wada jira shir jadad ugu qabteen hotel Mansour ee magaalada Berbera ka soo horjeestay dacwad uu ka gudbiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Faysal Cali Waraabe maayarka magaalada Berbera iyo maayarka Gabiley xildhibaano kale kuwaas oo sheegay inay ka baxeen xisbiga Ucud salaadiintan iyo cuqaashan ayaa sheegay maayarka magaalada Berbera ay yihiin dadkii soo doortay uu ahaa xildhibaankii ugu codka badnaa xildhibaanada degmada Berbera ka soo baxay odayaashan iyo salaadiintan ayaa fariin u diray gudoomiyaha maxkamadda sare kuwishaka doorashooyinka qaranka waxaana digniin u direen gudoomiyaha xisbiga Ucud Faysal Cali Waraabe waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan anigoo magacaygu yahay Suldaan Shabcaan Jibriil Jaamac oo ka soo jeeda salaadiinta gobolka Saaxil halkan waxaanu ka cadaynaynaa arrimaha gardarrada oo wada gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe ay amahanba soo noqonaysa ee ku igman arrimaha maxkamadda oo daba socdo maayarka iyo xildhibaanadii ka soo baxay Ucud Faysal Cali Waraabe waxaana markii wax iska keen jirin way shuraakadana ku kala baxna adaana kala saaray islaamba waxa leeyna lahayd wan bay qasha inanta way sarartiisi soo sararta maxaa siisay waxay tooy sararta waxaan ku siiyay kana inaad ka baxo ku damanaad ku gelin anigoo ah Aqal Jaamac Meegaag Maxamed oo kamid ah cuqaasha gobolka Saaxil waxaanu ka hadlaynaa arrinka uu soo jeediyay amba dacwadda uu ka keenay Faysal Cali Waraabe xubnaha ka baxay taanahay cuqaasha iyo odayaasha iyo dadka gobolka Saaxil waxaanu leenahay wax weeyaan gardarro haddii uu xeerku ku qaban waayay oo sharcigu ku qaban waayay Faysal Cali Waraabe qaban waayay cid kalena qaban maayo waxaanu leenahay Faysal Cali Waraabe isaga sharci darro ku jooga on la hadlaynaa gudoomiyaha Ucud ee la yiraahdo Faysal Cali Waraabe oo aanu isleenahay ninkaasi wuxuu sameeyaa wax aan waxyaabo badan oo mudarra oo aanu kaga tirsanayno gobolka Saaxil maalintii dawladda xafladiisa furayay wuxuu ku hadlayay Jibriil Abukar Ciise Muuse aniga wada marac garxajis yabaynu ka raqsanayna habarawal waxaanu leenahay ninkaasi nin mas'uuliyad haya maaha ma waxaanu ka hadlaynaa lixda xubnood ee uu eedeynayo oo loo aragno inuu ku eedeynayo qalad cad iyo bareer uu bareersan yahay waliba gobolka Saaxil markaan soo dhaweeyo waxaan ka hadlayaa maayirka gobolka Saaxil wuxuu ku soo baxay codkii Saaxil waxa uu ka soo baxay Ucudii hore shaqo ku mulahayn Ucudna isaga yiri mar rabo ee iga taga in Cali Waraabe waxaan leenahay way naga dhaxlanay xusbiga ee ha ku qaadashay isteeshiga waqtiga loo kala quusanay qoomamo laada baan u leenahay waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Xirsi Xasan waxa kamid ah dhalinyarada gobolka Saaxil marka hore waxaan la hadlaynaa inuu sheegaynaa gudoomiyaha xusbiga Ucud Faysal Cali Waraabe aan sharafaytan uu wada ee maayirka dadkiisii iyo gobolkiisiiba wata ee wax qabadka dawladda iyo dadkuba ay ogyihiin intuu meelaha ka cantarafaynayo Cabdishakuur Cidin maayirka golaha deegaanka ee gobolka Saaxil wax ku dhaama doonaan leenahay dantaada gara Faysalow waxaanu maqli jirnay odayga Faysal markay saaxiibadiisa siyaasaddu meelaha ka hadlayaan odayga dawadiiba ka godo uu xanuunsanaya waxaanu laakiin oran jirnay waar odayga dacayada ka daayay xanuunkay sheegayeen imakaanu aragnay odaygu inuu xanuunsanayo haday ka godayna anagu dawo u keeni maynee adeerninka dadweynaha magaalada Berbera ayaa muddooyinkii u dambeeyay la dhacsanaa wax qabadka maayarka magaalada Berbera ka fuliyay degmada Berbera Muuse Jaamac Maxamed Sam News TV magaalada Berbera